بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سيدا مقع بشو حنبارسان تهي أو ياش إنه هره مدة الصومالية مسلم كأه أستعمى وحاوة بالوالب بلها هجري كأه دعوة مركز إليهين ددوينه هكسي برتين أي كو أستيين بشو معناها سنة كوجه الرئية أو مثلا محرم لي هذا waxay u bixiyeen bishii zako sanad walba bilowgiisa bishii zakay dhahan si muslimiintu ay zakada u dhiibaan taas oo ku tusaysa dhaqankeena inuu salka ku haayo diinta islaamka oo dadkeenu ay ahayn dad zakada bixiya bisha saddexaad ee sanadka hijriga markii la joogana oo carabi ahaan loo yaqaan rabiicul awwal dadkeena Soomaalidu waxay u yaqaanaan bishii mawlidka halkaas waxaad ka dareemaysaa in culimadeennii hore si ay u baraan ummadda taariikhda iyo siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam bishii uu dhashayna ay tahay ayaa bishii waxay magac uga dhigeen oo kor saareen bishii mawlidka taas waxay ku tusaysaa ahmiyada ay bishaasi u leedahay taariikhda yaani muslimiinta taas oo ah dhacdada ku soo dhex aaday oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dhalashadiisa ah oo muslimiintuna ay nabiga aad u jecel yihiin siiradiisa in caruurta lagu ababiyo oo la barana ay tahay ayaa bishaas magaca mawlid loo bixiyay marka dadka inay magacaas mawlid markay maqlaan inay wax kale u fahmaan iyaysan noqonina inay noqoto waa dhalasho yaana dhashay oo laga sheekeynayo xaalkan uu ku saabsan yahay waxa dhashay nabigeena sallallahu alayhi wasallam saas markii loo fahmana qof walba oo nabiga sallallahu alayhi wasallam agtiisa lagu xuso ama la sheego waxa uu soo degdegaysa salligiisa iyo jacaylkiisa marka bishu saas ay ahmiyad inoogu leedahay Sheikh Abdi Xayi muslimiinta maxaa la gudboon si ay u weynayaan xuska dhalashada nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa haatee waxa la gudboon inay siiradiisa bartaan sidii uu diinta yaani u soo faafiyay caalamku sidii uu ahaa intuusan imaanin ka hor kadib nabigu markuu imaaday sallallahu alayhi wasallam soo caalamka dhan u bedelay mashaakilka muslimiinta maanta haysta waa mashaakil oo la mid ah kuwii intii islaamku in imaanin ka hor dadka haystay oo kale ay kamid tahay jawaanibta nolosha oo dhan inay ka burbursan yihiin oo xagga iimaanka markii la fiiriyo iimaanka inuu daciifay oo dadka ay adduunyo la weyn tahay halkii aqeedada iyo diintu inay la weynaatay ahayd haddii xagga arrimaha bulshada ay ahaan lahaydna inay isu haystaan qabaa'il yani kala faana oo isu xoog sheegta oo yaakulu alqawiyyu minhum ad-daciif inay saas ay tahay marka bishaan in yani la sheego oo nabiga sallallahu alayhi wasallam siiradiisa la soo qaado waxay u tahay muslimiinta qudwo iyo dayasho si ay uga faa'iideystaan dhacdooyinkaas taariikhda soo maray ee uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu maariyay mashaakilaadkii dadka haystayna uu kaga xaliyay wadadii uu kaga xaliyay inay ku raacaan oo ku daydaan ayay uga dhigan tahay dadka muslimiinta ah iyadoo lagu gud jiro bisha dhalashada nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee haddana Faransiiska waxaa ka socda sawirro marka lagu xumeynayo nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee haddaba muslimiinta maxaa ka gudboon arintaasi runtii arintaasi aad soo qaaday waa arin aad muhiim u ah oo maalmahan aad yani caalamka dhan uu uga sheekeynayo dawladda waaweyna ay ku kala baxeen oo dawlad walba mowqifkeedu uu ku cadaaday waxaa jira marka dawlado nabiga sallallahu alayhi wasallam inay difaacaan oo Faransiiskaasi nabiga wax ka sheegaya inay edbiyaan oo ay dhahaan edebtaadu way yar tahay meesha aad soo faragashatay meel la taaban kara ma aha oo dadka muslimiinta ah nabigooda meel weyn ayuu uga yaalaa marka taasi iyadoo saas ay u jirto oo ay tahay dadka muslimiinta oo dhan inay arintaas iyada ka falceliyaan oo inaga falceliyaan adduunka maanta hal qol ayuu isku noqday caalamka dhan uu isa saameeyaa Faransiiska maanta waxa ku socota arrimo ah inay muslimiintu ku baaqayaan dawladdaasi nabigeena sallallahu alayhi wasallam aflagaadeysay waxyaabaha ay soo saarto ee badeecadeeda ah hal muqaadiceeyo ama hal gooyo oo waxba laga gadanin si ay u ogaadaan nabigana aflagaadeynaa inuu dad leeyahay oo nabiga in loo gargaaro ay tahay taas inay meesha ka soo baxdo illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya thanayn idhuma fil ghar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا مركا إلهي بقى نبي سوق جرجارة إلهي بقى بلن قاضي مركو نولا إيه مركو لنتيبة إنه كوا كجس جس النبي إلهي وكجف ليه وإلهي يقول إنا كفيناك المستهزئين أنك يا كعك عفينا كوا كوجس جسة وحي إلهي وكوك عفين لها مركا والنبي والجود دفاع لها ضدك مؤمنين تعيال ربا إني موجيان دريان كوضا إني تلابوي كصعب سن إن النبي يعني الوجس جسم إني أجادان ضدك لينايا
shakhsi caadi ah hadii wax laga sheegi karo sida hadda u dhigayaan oo xurriyadii oo hadalka ay arintaas kamid tahay oo qofku waa xor wuxuu rabo sawiri karaa wuxuu dhuhu sheegi karaa inay dareemaan in nabi sallallahu alayhi wasallam shakhsiyadiisu ay ahayn shakhsiyo yaani la faragashan karo aad ayaa loogu baahan yahay mid kale dadka muslimiinta bisha markay dhalato oo laga yaabo inay khilaafaad ayaga dhexdooda ku saabsan oo nabiga dhalashadiisa iyo ihtifaalkiisa la isku qabsado inay taas dib u dhigtaan oo yiraahdaan maanta ma taagno maalinkii inta nabiga wada rumaysan ay isculaadin lahaayeen waxay taagan tahay inta nabiga rumaysan ayagoo wada jira si ay nabigooda u difaacan lahaayeen taas ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay xigmad waxa jirta afmaamada dhahaysa wal kor hookooy walisa walaabe hadii wax koro oo banaanka inooga imaaday uu inoogu yimaado wixii inaga dhaxeeyay hoose dib ayaa la isaga dhigaa marka arrimaha ku saabsan inaga dhexdeena oo khilaafaadka qaarkood oo bishan mawlid markii la gaaray la isku qabto ma anta meesha adduunka uu maraayo iyo nabi nacaybka meesha ay gaalada ay maanta ka taagan yihiin taas waxay inuu waajibinaysaa midnimo inaan muujino oo inagoo midaysan aan sida nabiga u wada difaaci lahayn aan garab isugu wada siin lahayn ayna u ogaadaan kuwa nabiga afku soo taagay nabigu inuu dad leeyahay atbaac inuu leeyahay dad jecel oo naftooda iyo maalkooda iyo caruurtooda yaani nabiga ku furana inay jiraan in dareenkaas loo muujiyo aad ay muhiim u tahay